xogayaha maaliyadda xisbiga ucid Marwe Faadumo Siciid oo waraysi gaar ah siisay on cable TV intii aanay ka soo amba bixin dalka Finland ayaa ka warantay socdaalkeedii Finland oo qaatay 4 toddobaad iyada oo la kulantay madaxda iyo baarlamaanka Finland sidoo kale waxay u gudubtay dalka Sweden oo ay kulamo kula yeelatay wasiirka xukuumadda Sweden ka tirsan marayga waramaysayna waxay tiri Sweden waxaan la kulmay wasaaradda cadaaladda iyo maxay baarlamaanka annagoo arrimo fara badan aanu ka hadlayno arrimahaas oo ku saabsan maxkamadaha maxkamadaha baarlamaanka maxay wixii loo qaban karayo wixii ay u baahan yihiin iyadoo aan maantana aan shirkii ugu qiimaha qaayaha badnaa aan maxay ka galay oo ahaa MP Finland oo gabadha oo maxay runtii iiga soo baxday doodii ay ku jirtay baarlamaanka iiga soo baxday aan dabeetana si fiican u wada hadalnay oo aanu maxay ka hadlaynay waxyaabo fara badan maxay doorarka ay dumarku iyo haweenku ay ku leeyihiin iyo dhalinyaradu xukuumadda iyo baarlamaankaba shaqooyin fara badan oo aanu u baahanahay tababar fara badan oo u baahanahay xitaa aanu iska soo gaadhnayba inay iyadu laftarkeedu ay timaado oo ay Somaliland ay soo booqato oo aan imaka doonayna inaan ka shaqeyno sidii ay taasuna ay maxay u suurtageli lahayd insha Allah bismillaahi kariim sidoo kale waxay ka warantay caqabadaha ictiraafka Somaliland hortaagan iyada oo ka warantay mooshin baarlamaanka Finland hor yaala iyo waxa hortaagan waxayna tiri Somaliland lagama hayo موفقيدي أو حاجة دولة الصوماليلان وحلاقة بحني هاي إنه موفق تاجن أو بنان أو عد أو وجهن إنه محايدين أي تدك تبدأ دولة ده تبدأ إنه يسوق بيسو إما كوقت كان حاضر كحبض اللجوء كالمرمية وحويان الصوماليلان مفدرال بقاعدتي يكون استاجدي بمحايد أي ولي تبدأ كنتاي marka xabada waxa loo baahan yahay dawladda Somaliland inay mabda'eedii oo cad oo saxsan inay bixiso waxa kale oo weydiiyay waxa xisbiga ucid u ballan qaadayo ummadda hadii uu ku guuleysto doorashada soo socda ee 2015 waxayna kaga jawaabtay Somaliland ama gudo ama dibad mid kasta ha ahaato waxaan ku ballan qaadaynaa inaynu maxaahayd cadaalad taama hadii uu Ilaahay nagu guuleeyo maxaahayd doorashadan waxa kaliya qof walba deeqa nin weyn nin yar gabadh islaan maxaahayd inan yar waxa deeqda waa cadaalad gobolada oo dhan waxa isku keeni karaya raxmad iyo wanaag maxaahayd ka dhaxdhalinaya wixii qabyaalad tirtiri karayo waa cadaalad gabagabadii waraysigayga waxaan weydiiyay waxa jaaliyadda Somaliland ee dalka Finland kula talin lahayd waxayna tiri soo jeedin lahaa maxaahayd shaqo fara badan ba halkan idinka banaan dawladdiinu waxa weyn dawlad aad iyo aad u wanaagsan oo maxaahayd dhiga fiican u soo furfuraysa maxaahayd Somaliland jecelna inay maxaahayd jaaliyadda Somaliland ay la kulmaan marka waxaan leeyahay baarlamaankiina iyo dawladdiina iyo wasiiradiina maxaahayd la kulma la hadla ka daadajiya qidada maxaahayd Somaliland goon istaageeda هذا يوسف عثمان on cable TV Helsinki Finland